islaantii soo qaahun ii soo diray islaantii soo qaahun markuu ii soo diray xoogaa fuujignaana sameeyay waan shakiyay islaantii ilmo badan u heesto qof intaas isla joogeen sawiraanteedii qaahun ii soo diray marka waan yar shakiyay anigii oo yar furjigan oo wuxuu ugu dhahay waxaan u baahanahay sawiraantaada waxaan u baahanahay video inaad ugula hadashid waxaan u baahanahay wax badan inaan kaa ogaado marka si oo hadhowti aan kugu soo dhiirido aniga qof aan wax weeye warka haynin tigid uma soo gubi karo mana ku imaan kari anoo aan xaaladahaaga wax badan kala soconin kulanti wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada barnaamijku waa barnaamijkii Haasaawaha Toosan oo aalaaba halkan aynu idinkaga soo gudbino inta aan sheekada maanta aadka aan la yaabay ee maskaxdaydu ay qaadan weyday aan u gudbin waxaan idinka codsanayaa marka hore haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto oo channelka subscribe tiraado kadibna aad gambaleelka furato si muuqaaladu ay kugu soo dhacaan haddii aad tahay saaxiibkii hore ee nala jiray ee nala joogana malaayiin jeer ayaan kaaga mahadcelinayaa sida aad noogu tixan tahay oo markaasi page-keena Facebook-ga iyo YouTube channel-kaba aad nogala socoto shukran saaxiibayaal haddii aan u soo laabto barnaamijka Haasaawaha Toosan waa qaybtiisii 27aad xilligan aan idin soo gudbinayo waxaan jeclahay inaan idinkula wadaago dhacdo aad iga yaabisay oo ku saabsan gabadh aynu wareysanay oo walaac xooggan ka muujinaysa ninkii ayada qabay oo naag kale la qabo oo ay sheegayso inuu u soo dirayo sawirada xaaskiisii hore carruurtu u dhashay ee qaawan sawirada xaaskiisii hore ee carruurtu u dhashay ee qaawan ayuu u soo dirayaa taas oo argagax ku beertay waxayna ka cabsatay sida ay ugu kalsoonaan karto iyo weliba sidoo kale dhacdooyin kale oo ayadu ku sameeyay uu ku rigataynayo iyo weliba isaga iyo ayaga halka meesha ay kala marayaan xaaladoodu iminka ay marayso in lacagihii meherkaba ay isku haystaan markii ay ka codsatay inay kala gudbaan balse intaan u gudbin afruntii ayaa noo socoto saaxiib haddii aad nagu cusubtahay waxaan ka codsanayaa inaad ka qayb qaadato barnaamijka afrunta ramadaanka oo shacbaanka aynu sii bixin doono oo aynu ugu talagalnay in qoys walba aynu $70 aynu gaarsiino oo u noqonayso in ay ka caawiso sida raashinkii guriga ay dhiga lahaayeen ka waran haddii aad suuqa soo aaday si aad u adeegato kadibna si lama filaan aad aragtid dad meel isugu aruursan oo alaab iibsanaya qof walbana lacag sare ku qaylinaya si asaga looga iibiyo alaabta faduushu inta ku qaado aad istiraahid eeg alaabta qaaliga ay la isku haysto mise waa qof dumar oo la iibinayo inta aan videogeena hore u galin hayga ilaawin inaad ii saartid subscribe qarniyadii hore wadamada galbeedka gaar ahaan dalka Britain waxa ka jirtay caado ah in ninku hadii uu xaaskiisa naco uu iska iibin karo suuqu geynaya waa iibinaya toos dhowr maalmood ka hor intuusan soo iibgeyn ayuu sii shaacinaya warka inuu maalintaas suuq iimaanayo oo islaantiisa iibinaya nin walba ay lacagtiisa sii diyaarsado maalinta iibintu dhacayso ninku islaantiisu soo jeediya asagoo xarig dhuunta kaga soo xiray ama gacmaha sidii neef ariya oo keenaya suuqa xoolaha lagu iibiyo ama suuqa caadiga ah ee weyn ee alaabta inta minbarka u baxay ayuu ku qaylinaya lacag cayiman ninkii lacagta bixiya ayaa qaadanaya islaanta ama kii ka sarmariyaba alaab xaraasha lagu iibinayo ma ahana meesha wax kale isdhimaysa waxa uu sheegaya waxa ay ku fiican tahay iyo waxa ay ku xun tahay yaani cunto karinta taqaana waa naag balaaye oo gaari ah ama waa baali wax walba sidii alaabtii inta waxa ku dheer ninka iibsanaya ay waa iska hubinaya inay wax ka maqan yihiin iyo in kale fartu haday go'an tahay wuxuu dhahayo inuu lacagta iga dhin farba go'an ama cidi baa ka maqan subhanallah galbeedka waagi hore guurku waxa uu u tixgashnaa inuu yahay heshiis ganacsi oo aroos iyo soo doondoon toona ma uusan lahayn labadii jidka isku arko taaba iska xaroonayaan sidii bahaimti bas baxaaskiisa way saa ku noqotay sababta ay u iibinayaanna waxa ay ahayd in hadii uu ninku is yiraahdo xaaskaaga fur ama reeraheediisa ga celin awal hore ma qabin looga baahan yahay inuu bixiyo $15,000 lacag gaaraysa baarlamankana aad ogolaansho ka soo qaadato iyo khasiiska kaniisada yaani meeshii arooska la isaga adkeyn jiray furinka la isku adkeynaya tartiib buu ku soo xareysanaya bal waa kan ayaa ka saarayadii ku qabsanaysa inaad intaas samaysid ama inaad iska iibid oo ninka la siisid faa'iidana kala soo noqoto dumarka xitaa qaar baa ku faraxsanaan jiray in la iibinayo maxaa yeelay wax isleedahay meel cusub baad tagaysaa yaani ninkaaga marka isdirirtaan meesha hadda laga dhaho war ifur waarna iibi warya ahayd waxaana la joojiyay caadadaas sanadii 1913 maxaa yeelay waxa gabi ahaan balalaalay qaanuunkii ku adkeynta furiinka oo furitaankii ayaa fududaaday laakiin weli meelo ayay ilaa hadda ka jirtaa caadadaas sida dalka Hindiya ninku deyn lagu leeyahay haduu iska bixin waayo ninka deynta kule xaaskiisa siinaya si uu deynta isaga gudo markaasay hadda galbeedku ku leeyihiin xuquuqda haweenka iyo xuquuqda insaanka u doodayna bal idin deg maxaad ka leedahay mowduucaas adigu ka soo dhiibay fikirkaaga daawada hadii aad xagga soo gaartay aad iyo aad
ayaad ugu mahadsan tahay dhegeysigaaga wacan fadlan ha iga ilaawin inaad subscribe ii taabatid